Assalaamu calaykum. Shabakadda Korea Media Center waxay idiin soo gudbinaysaa 10 calaamadood oo iimaanka qofka muslimka ah daciifiya. Qodobka koowaad, qofka oo caadaysta in uu dambi u sameeyo si joogto ah isagoo aan u arkayn in uu dambi sameynayo, waxa uu sameynayna u yeelo qiil iyo marmarsiiyo. Qodobka labaad, qalbiga u adkaada sidii dhagax oo kale, heer uu gaaro qofka inuu qalbigiisu ku raaxaysto heesaha iyo muusikada laakiin quraanka aan aqrin, marka uu maqlo aan waxba dareemin, wacdiga iyo kheyraadkana isdhaafiya. Qodobka saddexaad, deganaanta oo qofka ka lunta. Waxa uu qofku markasta dareemayaa ciriiri inuu ku jiro, cadaadis joogto ah inuu saaran yahay, mashquul badan iyo isku dhexyaacsanaan. Qodobka afaraad, cibaadada oo uu qofka ka jeesto, salaada oo uu tukan waayo ama si istutus ah ku tukado oo aan khushuuc iyo alla ka cabsi toona lahayn. Qodobka shanaad, xuska alle oo uu dayaco, carabkiisa oo ka yaraado kelmadaha Allah subxaanahu wa tacaala lagu xusayo laguna weyneynayo. Qodobka lixaad, isla weyne iyo kibir badan oo qofka gasha una qaata in dadka oo dhan uu ka sarreeyo iyagoona ay ka hooseeyaan. Qodobka toddobaad, damaa'i xun, dhuuninimo, qofka oo caadaysta in uu dadka waxooda boobo, wax kastana ka doorbido shilimaad uu helo. Qodobka sideedaad, bakhayl, qofka oo xoolo ururiya, maalkiisana aan waxba ka bixin, sadaqadiisuna aad u yaraato. Qodobka sagaalaad, dood iyo muran xad dhaaf ah, markaas qofka ku fogaado dooda iyo sharaxaad isagoo niyadiisu u tahay inuu qofka saxayo, isagana isku muujiyo inuu saxan yahay. Qodobka tobanaad, xaasidnimo, qofka oo xaasid ku noqda guusha dadka kale alla gaarsiiyey iyo waxa ay haystaan oo alla siiyey, jeclaadana in ay waayaan ama ay noloshoodu baaba'do, farxad badanna dareema markii dab ku dhaco ama dhib yar gaaro dadka walaalihiis ee muslimka ah.